maanta sida fariinta aan ku hayno waxaa la rajaynayaa in xukuumadda maanta barnaamijkeedii la keeno oo ay maaragtay baarlamaanka arrintaasi go-aan ay ka gaaraan hadduu ilaahay raalli ka noqdo taasoo xukuumadda inay codka kalsoonida maanta wasiiradii prime ministerka uu ku dhawaaqay la filayo inay maaragtay baarlamaanka sidii waajibkiisii ahaa in arrintaasi ay maanta noqdaan kuwii sidii loogu maaragtay fadhiyey sharci ahaan inay ama ogolaadaan ama inay diidaan iyaga looga fadhiyo hadduu ilaahay yidhaahdo. tirinta leegaa la doonaya si xukuumadda ay u meel marto kale xildhibaan dalxo cod hal dheeri marka korobka uu soo fariisto 139 ra-iisul wasaaraha dabcan waa uu xukuumaddii uu sameeyey waktigii dastuuriga ahaa waxay ku eg tahay malaha dhowr maalmood 2 maalmood kadib ay ku eg tahay waxaa la gudboon waxaa option keliya ba haystaaba ah inuu xukuumaddii hor keeno baarlamaanka golaha shacabka uu ka codsado inay ansixiyaan hadday ansixin waayaan markaa optionka kale markaasuu imaanaya laakiin hadda aniga waxaan rajooyin ka qabaa xildhibaanada golaha shacabka sanadkan isbedel ayaan soo wada samaynay in mataqaanaa waddanka aan wada badbaadino ayaga ayaa hadda codkii mataqaanaa kalsoonisiinta xildhibaanada ayaga ayaa haysta golihii fulinta sidaa darteed ayadoo la fiirinayo xaaladda abaar cudur dhibaato colaadeed ee waddanka ka jirta in hadda la isku celiyo oo la isku mashquulo oo annaga aan isku mashquulno xukuumaddii iyo baarlamaanka ma ahan ilama qumana in aragti fog lagu fiiriyo ayaan qabaa ciddii wax tabanaysana ay noqoto maaragtay mar kale xisaabtan kale laakiin hadda aan ummadda soomaaliyeed ee dhammaanaysa ee geedaha hoostooda ku dhimanaya oo maaragtay gaajada iyo haraadka iyo cudurka uu dilayo inaan lagu daawanin ee annagaana isku mashquulin ee la baaskareeyo ayaan kusoo jeedinayaa codka kalsoonida oo ra-iisul wasaaraha ay siiyeen markuu keligiis ahay inta in ka badan ayuu ku gudbaa ra-iisul wasaaraha ayuu ku gudbaa markii wax dib loogu laaban karo ma jirto daqiiqad maanta dalka dib looguma laaban karo xukuumaddaas hadday dib u laabatana waxa waaye annaga waxaan ku dhaarana dalka iyo dadkaba inaan badbaadino maanta dadkii ayaa leenayo waxaad maqlaysaa waalidiin dhahaya carruurtayna ayaa noo beeca waa ku aragnay meel kasta saxaafadan ka maqlay youtubeyadan ku aragnay wax walbaan ku aragnay annagana waxa waaye maanta ma ahan inaan fiirino mas-uuliyad iyo wasiirkaas iyo inaan fiirino maaha waxa waaye maanta dhaarta annaga aan dhaaranay oo dalka iyo dadka inaan badbaadino inaan u dhaarano xukuumaddaas la soo idmadane inaan maanta oon kula xisaabtano tilaabo allaale tilaabadii ay qaado shaqadeedana ka qabsano ayaguna ay shaqadooda ay qabsadaan maalinkii la ansixiyo waxqabadkeeda koowaad inay bilowdo ayaan rabnaa annaga wax shaqeeyo ayaan u baahannahay baarlamaankii talado musuq maasuq tuuro sidii horeed ku timideen rabbi towbadhahao yukutaaban baarlamaankii talado musuq maasuq tuuro sidii horeed ku timideen rabbi towbadhahao yukutaaban yukutaaban shacabka toosiya murana isla
توسيا ورنا اسلا تاقنا دنتا شعب كوتنا